boqor ayaa maalin dhagax weyn oo aad u culus dhigay bartamaha wadada kadibna dhinac ayuu u baxay isagoo geedaha xaggooda dambe isku qarinaya si uu u daawado waxa dhacaya. mid ay u yimaadeen dadkii ganacsatadii ugu taajirsanaa markay dhagaxa arkeen hareerihiisa ayay ka wareegeen oo socodkooda ay iska sii wateen. xitaa mid ka mid ah saaxiibadii ugu dhawaa boqorka ayaa cod dheer ku yiri boqor aan waxba tarin weeyaan, xitaa wadooyinka bulshadu ma nadiifin karo. maalintii way sii socotay, dadku way marayeen, qof walba waxbuu lahaa waxbuu ka sheegayay, laakiin qofna waxba ma qaban. markii ay qorraxdu sii dhacaysay ayaa nin beeraley ah oo faqiir ah wadada soo maray. waxa uu xambaarsanaa khudaar culus, wiilkiisa ayaa la socday iyagoo wada qoslaya oo sheekaysanaya. si kadis ah ayuu u dhacay, suulkiisii ayuu si xoog leh ugu dhuftay dhagixii wadada yaalay. xanuun ayuu dareemay, wuxuuna ku sigtayba inuu dhaco, laakiin ma habaartamin mana caban. taa beddelkeeda khudaartii ayuu dhulka dhigay, gacmahana kor ayuu u feetay. dabadeedna waxa uu bilaabay inuu dhagax riixo. dhagaxu aad buu u cuslaa, wuu cabaaday, wuu isku dhibay, laakiin taako tallaabo ugu dambayn dhagixii dhinaca wadada ayuu uga riixay. markii uu khudaartiisii qaadanayay ayuu wuxuu arkay ciidda hoosteeda halkii uu dhagaxu yaalay waxa ku jiray boorso yar. uu furay, kadibna waa uu yaabay. gudaha waxa ku jiray qadaadiic dahab ah iyo warqad ay ku dhagan tahay astaanta boqortooyadu. si tartiib ah ayuu warqadii u furay, waxaana ku qornayd dahabkan waxa iska leh qofkii jidka ka qaaday caqabada, waxaana ku saxeexnaa boqorka. ninkii beeralayga ahaa waa uu istaagay isagoo aamusan oo yaaban, wiilkiisina kor buu u eegay isagoo isna yaaban. maalintaas gurigoodii waxay ku noqdeen iyagoo qani ah oo dahab wata, iyo iyagoo weliba haysta wax ka badan oo ah casharka ay ka barteen. waxay wateen cashar aanay dadka badankoodu weligood baran. caqabaduhu waxay qariyaan fursadaha, laakiin fursadahaas waxaa hele oo keliya kuwa diyaarka u ah inay dhagaxa meesha ka qaadaan.